waxaana wanaagsan daawadayaal madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa sheegay inuu iska caabin xoog badan kala hortagay cadawga isla markaana ay iska caabiyeen iskana riixeen cadawgii doonaya dadkooda iyo dalkoodana inuu qabsado. sidoo kale waxaa jirta in ay duqeymahan kala joogsi lahayn ay Ruushyaanku ku hayaan caasimadda dalka Ukraine ee magaalada Kiev, ayadoo la dareemay burburka soo gaaray magaalada qaybihiisa kala duwan. Sawaariikhda oo aan loo kala soocin qaybaha sifilka iyo kuwa ciidanka ayaa si darandoori ah ay Ruushyaanku la dhacayaan, ayagoo sawaariikhda ka soo ridaya gantaalaha cruise-ka iyo kuwa maraakiibta badda. dhanka kale waxaa jirta in dhismaha dheer ee madaxtooyadaasi ay soo gaareen dhaawacyo iyo burburka bacdi markii uu ku dhacay gantaal ay Ruushyaanku soo rideen. magaalada ayaa gabi ahaanba laga dareemayaa qaybo ka mid ah burburka sawaariikhda meelaha fog ay ka soo ridayaan Ruushyaanku. habeenkii xalay duulaan ay isku dayeen Ruushya inay isku ballaariso magaalada ayay wajigabax kala kulantay markay shacabka reer Ukraine ay sameeyeen iska caabin aad u fara badan, taasoo ay ku muujinayaan in ay kaga hortageen cadawga. iska caabinta ayaa waxay ahayd mid looga gol leeyahay sidii ay looga hortagi lahaa Ruushyaanka oo maalintii dhaweyd ku soo daashay magaalada dusheeda ciidamadooda gaarka ah ee kumaandooska, kuwaasoo doonaya inay qabsadaan magaalada. dhanka kale shacabka ayaa waxay bilaabeen ciidamada isgarabsanaya inay dhufaysyo ka qotaan magaalada bartamaheeda. dhufaysyada ay ka qodanayaan magaalada bartamaheeda ayaa waxa uu qayb ka yahay ku difaacitaanka lagu difaacayo magaalada Kiev oo halis ugu jirta cadawga. Kiev ayaa waxay ku taallaa juqraafi ahaan xuduudda meel 100 mayl oo kaliya u jirto meesha ay xuduudda ay la wadaagta Belarusia. dhanka kale waxaa jira in Ruushyaanku ay isku dayayaan in ay soo galaan magaaladaasi habeenkii labaad, iyadoo ay dhinaca kale wadamada reer Yurub ay bilaabeen inay ku soo rogaan cunaqabatayno maraakiibta iyo doomaha qaado xamuulka ay leeyahay Ruushya. doomahan Ruushya iyo maraakiibta xamuulka qaada ayaa loo diiday gabi ahaanba inay wax ganacsi ah ay ku soo sameeyaan ama ku soo xirtaan xeebaha wadamada Yurub. arrintan ayaa qayb ka cunaqabatayn ballaaran oo Ruushya lagu go'doominayo ka bacdi faragelintii duulaankii gardarrada ee Ruushyaanku ay ku soo qaadeen dalkaasi Ukraine. dhanka kale maraakiibta Ruushyaanka ayaa gabi ahaanba laga mamnuucay badaha iyo xeebaha kala duwan ee xaggaasi, kuwaasii xamuul badan ka qaadi jireen keeni jireenna. sidoo kale wadamada reer Yurub ayaa waxay bilaabeen inay dhaqaale iyo caawimaad u fidiyaan ciidamada Ukraine. dhanka kale waxaa jira mudaharaadyo aad u fara badan oo dadka reer Yurub ay ku bilaabeen inay kaga soo horjeestaan Ruushyaanka duulaanka gardarrada ku soo qaaday Ukraine, ayagoo taageero ugu muujinayo shacabka reer Ukraine. ayaa waxaa gabi ahaanba banaanbaxyo ka socda magaalooyinka waaweyn sida Paris, London, Berlin iyo Georgia iyo wadamo kale oo Yurub ka mid ah. sidaa daraadeed waxaa jirta in ay wadamada qaarkood sheegeen sida Ingiriiska, Jarmalka iyo Mareykanku inay deeqa military gaarsiin doonaan dalka Ukraine. Ukraine ayaa maalintii saddexaad difaac adag waxay kala hortagaysaa Ruushyaanka ayaa duqeymahan kala joogsi lahayn waxay ku hayaan caasimadda oo u noqotay hilib bannaan yaallo, taasoo ay keentay juqraafi ahaan meesha ay ku taallo. banaanbaxyadan ayaa waxay muujin doonaan nacayb loo qaada dadka Ruushyaanka, kuwaasoo intooda badan madaxweynahoodu yahay mid nidaamkii mucaangeyiintii wadamadii hore kaliya talisayaasha lahaan jiray sidii laasiyiintii oo kale. dadka reer Ukraine ayaa muujinayo isku duubni iyo mintidnimo, kuwaasoo ku difaacanayaan dalkooda iyo dadkooda.